Assalaamu calaykum waraxmatullah. Nuclearku waa hubka ugu burburista badan adduunka ee dawladaha qaybtooda ay haystaan. Qaybtii hore ayaa waxaan uga soo hadlay waxa uu yahay iyo sida loo sameeyo. Maanta waxaan ka hadlayaa nukliyeeradii ugu xoogga badnaa ee la sameeyo oo ay ku jiraan nukliyeerkii jasiiradda burburiyey iyo weliba kii raadkiisa laga dareemay meel u jirta 900 kiiloomitir. Horta haddaan si faahfaahsan uga hadlo su'aalan shalay soo qaatay oo ahayd haddii uraniumta nukliyeerka laga sameeyo dhagaxeeda intii dhulka laga soo saaro la soo qaado oo dab la qabadsiiyo maxaa dhacaya? Jawaabta waxaan iri dhagaxaasi ma qarxayo ee si caadi ah ayuu u gubanayaa. Sababta ayaa ah inay kala duwan yihiin gubashada iyo nukliyeerku. Atomka uraniumta ayaa waxa uu ka samaysan yahay nucleus ay ku jirto protono iyo neutrono iyo elektrono kor heehaabaya. Nukliyeerku waxa uu dhacaa markii wax laga bedelo bartamaha atomka oo neutron dheeraad ah lagu dhufto markaas oo uu kala jabayo oo nukliyeer noqonayo uraniumti. Laakiin haddii dab la qabadsiiyo dabkaasi waxa uu saameynayaa elektronada kaliya ee ma saameynayo bartamaha atomka. Xataa haddii bombo la soo qaato oo uraniumta lagu qarxiyo nukliyeer ma noqonayso. Marka dhagaxa uraniumta hadduu gubto weli waa uranium, laakiin haddii uu nukliyeer sameeyo waxa uu isu bedelayaa atomo kale. Haddaba nukliyeeradu waa laba nooc oo mid waxa uu kala jabiyaa atomkii uraniumta ahaa oo waxa ka dhasha atomyo kale. Laakiin nooca labaad oo ka energy badan ayaa laba atom oo sida hydrogenka oo kala ah ay isku darsamayaan oo waxa ay noqonayaan atom kale. Haddaba nukliyeerada nooca ugu awoodda badan ayaa waxa la dhahaa hydrogen bomb ama thermonuclear oo waa labadaas nooc oo nukliyeerka ah oo la isku daray. Marka hore waxaa qarxaya kan uraniumta la kala jabinayo kulka ka dhasha oo malaayiin digrii ka badan waxa uu keenayaa in atomyada hydrogentu isku darsamaan oo nukliyeer kale uu ka dhasho. Laga soo bilaabo 15 July 1945 markii tijaabadii u horeysay oo hub nukliyeer ah uu Mareykanku sameeyo ilaa maanta waxaa la sheegay in la sameeyay wax ka badan 250 tijaabooyin nukliyeer ah. Haddaba waa kuwan tijaabooyinkii nukliyeerada ahaa ee ugu awoodda badnaa. 1 November 1952 ayaa Mareykanku waxa uu tijaabiyay nukliyeerkii hydrogenka ahaa ee adduunka ugu horeeyay. Waxaa loo bixiyay IFMIC. Marka la cabiro qaraxyada ayaa waxa lagu cabiraa inta ay u dhiganto oo TNT ah. Qaraxan ayaa waxa lagu qiyaasay 10.4 milyan oo tan oo TNT ah oo loo dhigo megaton. Nukliyeerkan ayaa waxa uu 700 jeer ka awood badnaa kii lagu tuuray magaalooyinka Japan. Mareykanka ayaa waxa uu tijaabooyinkiisa ku sameyn jiray jasiiradaha Marshall ee ku yaala bartamaha Pacifiga oo Mareykanku xilligaas xukumayay. Haddaba jasiiradii nukliyeerkan lagu dhuftay oo la dhihi jiray Ilo Glab ayaa gabi ahaanteedba burburtay oo aysan waxba ka soo harin iyadoo meeshii ay jasiiradaasi ku taalay ay hadda tahay bad. Bishii Maarso 1954 ayaa waxa uu Mareykanku tijaabiyay nukliyeerkiisii ugu awoodda badnaa. Nukliyeerkaas oo u dhigmay 15 milyan oo tan oo TNT ah. Dad deganaa jasiirada ka fog meesha ayaa waxa ku soo daatay haraadigii nukliyeerka iyadoo Mareykanku jasiirado badan dadkii deganaa ka kaxeeyay. Dooni kalluumaysi oo ay saarnaayeen kalluumaysato Japanese ah oo u jirta meesha lagu qarxiyay nukliyeerka 80 kiiloomitir ayaa nin ka mid ahaa uu dhintay. Mareykanku waxa uu maleynayay inay awoodeedu ka yar tahay sidii ay noqotay. Markaas ayaa khasab ku noqotay in dad deganaa jasiirada ka fog meesha uu nukliyeerku ku qarxay oo uu saameyn ku yeeshay laga raro guryahoodii iyadoo ay ku sumoobeen dad 600 kor u dhaafayay. Haddaba markaan u jeesano Soofiyeedka iyo tijaabooyinkiisii nukliyeerka ayaa shanta nukliyeer ee adduunka ugu waaweyn kulligood waxaa sameeyay Soofiyeedka. Shantoodaasba 2 sano gudahood 1961 iyo 1962 ayuu Soofiyeedku tijaabiyay. Tijaabooyinkan ayaa kulligood waxay ka dhaceen jasiiradda Novaya ee ku taala waqooyiga Ruushka. 30 Oktoobar 1961 ayaa waxa uu Soofiyeedku tijaabiyay nukliyeerkii ugu awoodda badnaa ee adduunku uu arko. Waxay u dhigantay 50 milyan tan oo TNT ah. Halka Mareykanka nukliyeerkii ugu awoodda badnaa uu tijaabiyay uu ahaa 15 milyan tan kaliya. Nukliyeerka Soofiyeedku tijaabiyay ayaa waxay ka awood badnayd 3,000 oo nukliyeeradii lagu qarxiyay magaalooyinka Japan ah. Diyaaradii siday nukliyeerka ayaa baylotkeedii waxaa loo sheegay in fursadda badbaadadiisu ay tahay 50%. Bombadaas ayaa marka waxaa lagu xiray baarashuud aad u weyn oo 800 kiilo ahaa si ay waqti dheer ugu qaadato inay hoos ugu degto. Diyaaraduhuna waqti ugu helaan inay ka fogaadaan meesha qaraxa nukliyeerku ka dhacayay. Diyaaradii ayaa marka ka badbaaday qaraxii tooska ahaa, laakiin iyadoo 115 kiiloomitir u jirta ayaa waxaa soo gaaray hawo aad u xooggan oo qaraxaas ka dhalatay oo Ingiriiska la dhaho shock wave, taas oo diyaaradda hoos u soo riday.
laakiin muddo yar kadib bayloodkii dib ayuu u kontaroolay diyaaraddii uuna ka badbaaday inuu nukliyarkaas wax ku noqdo. iftiinka qaraxaas uu sameeyey ayaa waxa uu ballaciisu ahaa 8 kiiloomitir, dhererkiisuna 10 kiiloomitir. daruurtii ka dhalatay ayaa waxaa dhererkeedu ahaa 67 kiiloomitir oo 7 jeer ayay ka weynayd buurta adduunka ugu dheer ee Everest. tuulo qaraxa u jirtay 55 kiiloomitir, guryaheedii oo dhan dhulka ayay la sinmeen. magaalo u jirta 900 kiiloomitir ayaa daaqado ku yaalay jajabeen, iyadoo daaqado ku yaala Norway iyo Finlandna la soo sheegay inay sidaas oo kale noqdeen. inkastoo nukliyarkan uu qarxay isagoo dhulka u jira 4 kiiloomitir, ayaa haddana waxaa dhulka laga dareemay dhulgariir cabirkiisu ahaa 5.2. haddaba tijaabooyinkaas nukliyarada xilligii dagaalkii qaboobaa ayaa dawlad walba waxay isku dayi jirtay in nukliyarka ugu awooda badan ay iyadu qarxiso, laakiin haddii la sii wadi lahaa waxay dhibaato u geysan lahaayeen meelo ka fogfog meelihii nukliyarka lagu qarxiyey. intaas ayaa noogu jooga barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. assalaamu calaykum.